هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي إن شاء الله تعالى waxaan weli ku guda jirnaa maalmihii fadliga badnaayeen marka insha allahu tacaala maalmahan maadaama horeba aan usoo barinay inay yihiin maalmo aad iyo aad u fadli badan oo horeba aan usoo sheegnay inay yihiin maalmo ilaahay uu ku dhaartay subxaanahu wa tacaala baa haddana waxaa ku dhex jiro maalin la yidhaahdo sagaalaad taasoo aad iyo aad u fadli badan maalintaasoo dadka xujaada ay u istaagaan banaanka carafa ay istaagaan oo markaas labeeg iyo wax la mida maalintii ayaga ay qaada lahaayeen halka dadka oo aan xujaay ahaynin iyagoo meeshooda joogaan subaxda sagaalaad waa tan takbiirta ay bilaawayaan beri tooloo kale ciidda markii ay tahay haddaba sagaalaadkaas marka waxaa ku jiro khaywaad aan la soo koobi karin maalintaas sagaalaad soonka la soomaya maalintaas sagaalaad waa tan soonka horta tobanka maalmo yani guud ahaan waana ka soo hadalnay maalinteeda inay u dhigmayso sanad soomkeed baa haddana si gaar ahaan haddana maalintaa iyada a lagu soo dhex saartay maalinta waxaan jeclahay inay ku aadan tahay maalinta khamiista maalintaas sagaalaadka marka waa fadli oo waxay leedahay gaar ah inkastoo tobanka maalmo ilaahay uu ku dhaartay haddana maalintaas sagaalaad waxay leedahay fadli gaar bay leedahay waxaa loo baahan yahay marka qofkii aan soo soomin tobanka maalmood ama sagaalka maalmood ama sideedda maalmood qofkaan soo soomin waxaa loo baahan yahay maalintan sagaalaad inuu ka faa'iideyso uu soomo maadaama soomkeeda ilaahay uu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala maalinta sagaalaad inay markaas hatireyso sanadka sanadka la soo dhaafay dunuubtaa soo sameysay iyo sanadka kale hadda loo socdo markaasa carafada ah marka sidaa daraaddeeda sagaalaadkaasa fadiilada ay leedahay ma aha mida anaga meeshaan kusoo koobi karno laakiin waxaanu kusoo gaabsanaynaa hal xadiis kaasoo markaas rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam laga weriyey nabiga asigoo tilmaamaya maalintaa iyada ah fadligeeda buu nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam min xadiis ibnu khuseym nabiga wuxuu yidhi idaa kaana yowmu carafa maalinta carafada haddii la helo fa ina allaha tabaaraka wa tacaala yubaahi bihi malaa'ikatahu fayaquul maalinta sagaalaadka markii la gaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiis ayuu wuxuu ogeysiinaa oona la hadlaaba weli wuxuu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala unduruu ilaa cibaadi fiiriya malaa'igtiis ayuu ilaahay wuxuu ku leeyahay addoommadeeda fiiriya maxaa yeelay atawnii shuchan khubra way ii imaadeen ayagoo markaasa basaaseysan ayagoona markaasa bawraawsan waxaa laga wadaa warka markaan soo gaabano ayagoo xaj rabaan bay u imaadeenoo waa kaasoo waaxiina min kulli fajin camiiq waxayna ka imaadeen dhul walbo oo xeel dheer ama meel walbo xeel dheer ama meel walbo islaamka meel walbo dunida ayay ka imaadeen ayagoona markaasa rabaan inay markaasa xajkaasa gutaan markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igta wuxuu ku leeyahay ushhidukum innii qad gafartu lahum waxaan markhaati idinka dhigaa malaa'ig haddaad tihiin addoommadeeda dembigooda inaan u dhaafay taa baa idinka markhaati idinka dhigaa ogaada dembigooda waan u dhaafay taa ogaad markayse malaa'igtii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ku leeyihiin inna fiihim fulaanan murahafa inna fiihim fulaanan murahaqa waxaa ku dhex jira addoommadaasa adhahoosi dembigood waan dhaafay hebel hebel ayaa ku jiro ninkaasoo murahaq waxaa laga wadaa yaksha almaxaarima wayartakib almafaasid hebel hebel oo dembiila ah oo intaasoo dembi soo sameeyey intaasoo xaaraam soo sameeyey ayaa ku dhex jiro ummadda adhahoosi dembigooda waan dhaafay markhaadka noqod
waxaa ku dhex jir bay leeyihin malaa'igta fulaanan wa fulaanatan, hebel baa ku jiro, heblaay baa ku jirto, intaasoo dembi bay soo sameeyeen dadkaas, ilaahu waad og tahay, waa kaasoo dadkaas baad dhahaysaa maanta dembigooda waan dhaafa. So ilaahay subxaanahu wa tacaala jawaabta uu bixinay fi alle wuxuu leeyahay yaquulu allahu caza wajalla qad kafartu lahum, waa uu dembi dhaafa ogaada macal iyaga dadkaa sheegoosiin ku dhex jiraan oo dembiiliyaasha ah laftigood waan u dembi dhaaf buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. markaasoo nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam famaa min yowmin akharu catiiqan min annaari min yowmi carafat, ma jirto buu yidhi nabiga maalin oo ka sii badan in lis xureeyo, naar liskii xureeyo oo dadkaasa laga dhiga ama loo qoro dadkaas reer jannaad waayo ama dad badan oo yani ma jirto maalin oo naar liskii xureynayo oo janno lisku qorayo oo ka tiro badan maalinta carafada. maalintaasa dad badan baa naarta laga xureynaa, waxaana markaasa yani lagu qoraa inay ka mid yihiin ahlu janna. waa maalin aad iyo aad u faa'id badan, u fadli badan, oo xitaa bacdu axaadiis waxay bay tilmaamayaan shaydaanku maalintaasa maalin ka cara badan mal yani uu caroonayo shaydaanku, waayo wuxuu arkaa malaa'igtii oo markaas yani dadka intooda badan dembiiliyaasha ahaayeen oo waa kaasoo dunuubta loo dhaafayo, hoolihii markuu arko shaydaanka aad iyo aad ba u xanaaqaa baa layidhi maalintaa iyada. marka si kastaba ahaatee maalinta sagaalaad waxaan jecelnahay inay ku aadan tahay maalinta khamiista, marka waxaanu ka baahan yahay dadaal inaan sameyno. haddii 8 maalin aan soo soomno maasha allah, maalintaas sagaalaadna waa kaasoo aanu ku darno. haddii uu nagu dhex jiro dadaa 8 maalin soo soomin insha allahu tacaala, maalinta iyada ah sagaalaadka khamiista ku aadan haddii uu ilaahay yidhaahdo dadaalka aan u badano, khayr gooni ayaa ku jiro. ikhwat alaciza dadkii ka faa'iidaysan allah nugu daro. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala.